qaadaya oo waxaad geysaan meesha Hiblaayo loo yaqaano oo markaa waa dugsiga biyo dhacay ee ku yaala xaafadda idaacadda meel u dhow waayahay baan ku nidhi waa anigii saaxiibkay waanu kaxaynay kadib islaantii anagii sheekana kala dhex martay saan u soconay hooyo noo waran alxamdulilah ma fiicanta hooyo ma xaafadda mad gashaa baan ku nidhi kaasay tir hooyo maya ma galee xaafadda imika lagu sheegayo ayaan galaa oo hooyo gabadhan maxay ku ahayd gabadhan wax waa gabadhaydii weeyaan xaggan baan ugu qabaa ha maasha allah kadib islaantii saan u soconay islaantii waxay tiri hooyo inama fiican baa tihiin ilaahay haydi barakeeyo ilaahay cimriga caafimaadka idin siyaadiyo maasha allah ilma xalaal baa tihiin qoys fiican ma ka dhalateen qabiil fiican ma ka dhalateen maasha allah ilaahay diin iyo iimaan mid siiyay alxamdulilah waaye ma kun hooyo ilaahayna ku barakeeyo ilaahay laxadka ku soo celiyo waaye kadib waxa dhacday saan u soconay islaantii waxaan ugu tir hooyo waxaan idiga sheekeynaya qiso yar kooban waaye baan ku hooyo nooga sheekay waxay tiri hooyo indhahayga ilaahay de ma waxay u tiri ma yihiin macnii qof u dhashay indha la'aanta laakiinse gabadh midgaan ayaa sun ay soo walaaqday oo ay markaa ka dhigtay indhakuul oo kale ayay iga iibisay indhakuushii markaan suntii aan indhakuushi waystay markaan indhihii marsaday indhahaygu waa kuwaas way beeleen hooyo midgaha iska ilaaliya hooyo yuhuud weeyaan ummadda la mid maaha kadib waxaan ku nidhi hooyo maxaad ku nacday waxay tiri hooyo bay tiri ummad maaha bay tiri hooyo oo hooyo baan ku uri maxay nagaga duwan yihiin waxay tiri hooyo wax kastay nagaga duwan yihiin baktigay cunaan wax bay sameeyaan meeshaad ku aragta bay tiri asxaab ma yaqaanaan waxaan ku leeyahay ku baadhaan mooy wax kale ma yaqaanaan markaasaan ku uri hooyo bal haddaba anigii wiilkan saaxiibkay ah ee gacmaha ku hayna maxaad noo malaysaa markaasay tiri hooyo idinku ilma xalaal baa tihiin inama fiican baa tihiin waxaa tihiin